daawadayaal ku soo dhawaada wareysigan kooban oo aan ku faaqidi doono dhibaatada gudniinka gabdhaha waxaana igala qayb galaya Shukri Axmed Sandoon oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ahna qabiir caafimaad iyo Khalid Mahad Cismaan oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa kana shaqeeya iyo waliba Sheekh Maxamed Cumar Ciro oo kamid ah culimada magaalada Hargeysa kolley qof walba door ama kaalin uu ka leeyahay bulshada qaybtaasan su'aalaha ka weydiin doonaa balse intaas oo dhan u gudbin waxaan rabaa Dr. Shukri in ay sharaxaad kooban inaga siiso waxa uu yahay gudniinka marka hore FGM-ka sida u yaqaanaan waxa loo yaqaanaa gudniinka haweenka amba jaritaanka xubinta dumarka sidoo kalena waxa WHO ay qoraal ahaan ku sheegtay in ay u yaqaanaan naafeynta xubinta dumarka wuxuu la xiriiraa dhammaan hababka xubinta dumarka loo jaro amba moogta qayb kamida amba dhammaan loo jaro 3 nooc ayay gudniinku yahay labada nooc ee ugu horeeya tab 1 iyo tab 2 ga waxa lagu sheegaa inuu yahay sunni tab 3 ga oo isaguna aad u daran nooca saddexaad waxa loo yaqaanaa fircooniga haddii aan u gudbo dhibaatooyinka badanku keeno dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeyaan marka hore marka inan ay tahay caadada ayuu dhibaato ku leeyahay oo sideedaba caadi ahaan marka caafimaad ahaan marka loo eegayo qofka caadada gabdhaha qaarkood iyagoona la taaban oon gudniin moogtahay fircooni amba waxaas la jirin ay ku xanuunstaan maxaad markaa u malayn gabadhii la tolay ee meeshii dhan laga xidhay deetana markaa waxa dhacaysa in gabadhii moogtahay caadoodii ay xoog ugu xanuunsato taas waa mid ta kale ugu daran waxa weeyaan markay gabadhu ay gaadho marka la guursado kadib inay dhibaatooyin badan la kulanto oo ah inay foosho ku adkaato waqti badan ay qaadato inay foolato oo deetana taasina sababaysa in badanka qalliin loo maxay solutionku noqdo amba loogu xaliyo iyo ta kale oo ah in ay yeelato markay gabadha uurka leedahay foosha awgeed xanuunka awgeed ka yimid in ay moogtahay isku furmato oo deetana fistilo loo yaqaano taasina ay keenayso fistiladaas inuu keenayo xanuun badan uu keenayo waxaa kaloo jirta in meeshii markay xubintan waxaan la jarayo waa wax loogu talagalay function leh oo loogu talagalay inay wax protect gareeyaan amba ilaaliyaan mid walba wuxuu leeyahay shaqo u gaara oo loogu talagalay qaar waxay ka ilaalinayaan meesha xubinta ka ilaalinayaan daloolka ka ilaalinayaan infectionka marka meeshii marka waxaas oo dhan laga jaro waxay sababaysaa amba aad u fududaanaysaa inuu qofkii infection si degdeg ah uu qaado oo deetana halkaas ay ku yeelato maxaa la yiraahdaa urinary tract infection wax la yiraahdo oo kaadi mareenka infection ku yeelato marka runtii horta dhibaatooyinku aad bay u badan yahay oo intaasaan makahan ku soo koobaya wad maasantahay Shukri waan kugu soo noqon doonaa markan waxaan siinayaa Khalid waxaad ka shaqeysaa ama u shaqeysaa bulshada oo aad ka dhaqdhaqaaqdaa bulsho ahaan fakarka ay bulshada qabto ee ku aadan gudniinkan dhibaatada ku ah hablaha muxuu yahay adoo soo koobaya haddaan isku dayaa inaan soo koobo fikirrada ay kala duwan ama ra'yada kala duwan ee bulshadu ay ka aaminsan tahay gudniinka runtii waa fikirro aad u kala duwan oo kala tagsan haddaan ku horeeyo bulshada qaybaheed waxay aaminsan yihiin gudniinku in uu yahay waajib diini ah oo ay markaas waajib tahay in lagu fuliyo gabdhaha waa sababta marka loo isticmaalo kelmadda xalaaleyn marka had iyo jeer la fulinayo gudniinka inta badan bulshada Soomaaliyeed markay gudniinka fulinayso waxa la yiraahdaa wiilasha iyo gabdhahaba waa la xalaaleynaya laakiin ma aha xalaaleyn sidaan anigu aaminsanahay marka qayb waxay aaminsan tahay bulshada inaanu qofkii xalaal ba ahayn ilaa iyo gudniin la mariyo gaar ahaan gabdhaha sidoo kale qaybaha kale ee bulshada qaarkood waxay aaminsan yihiin in xagga taranta oo kale gabadha la guday ay ka taran badan tahay gabadhii kale qaarkood waxay aaminsan yihiin markaas in gabadha la guday ay ka dhowrsoon tahay gabdhihii kale ee aan la gudin isla markaana lagu ilaalin karo gudniin uun sharaftii qoyska tiyo markaas sharafta qoyska sida loo ilaalinaya ay tahay bulshada qaybaheed ba aaminsan haddii aan inanta la gudin in ay reerka u soo jiidi karto sumcad darro ama ay sharaftii qoyska hoos u dhigi karto sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in inanta la guday iyo inanta aan la gudin ay bulshada dhexdeedii ama hadday noqoto xaggii dhexgalka ee dhalinyarada kale
ay inanta la guday aanay bulshadii aad u dhexgelin inanta aan la gudinina ay bulshadii dhexgeli karto isla markaana ay u keeni karto marka qoyskii waxyaabo badan oo sumcad darra dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin ama fikrada ay qabaan waxa kamid ah in inanta la guday iyo inanta kale ay nadaafad ahaan xataa kala wanaagsan yihiin oo inanta la guday markaas ay ka nadaafad badan tahay saa awgeed sababo nadaafadeed bay u sameeyaan qaarkood waxay aaminsan yihiin in marka inantu aan gabadhba noqonayninba haddii aan la gudin halka bulshada Soomaaliyeed qayb badan oo kamid ah ay aaminsan yihiin in uu prerequisite ama in tusaale ahaan gudniinku uu yahay markaas shardi kamid ah shuruudaha guurka waayo inan aan la gudin lama guursan karo saas awgeed waxa weeyaan shuruud ama qodob hordhac u ah in gabadhii uu nin guursado markay caruurnimo ka tagto ee ay gabadhnimo gaadhayso ee guur u diyaar garoobayso waa in la gudo waana waajib bay aaminsan yihiin bulshada qaybeed marka haddaan soo koobo fikrada bulshadu ay ka aaminsan tahay gudniinka kuwa taban inkastoo ay badan yihiin waxa weeyaan inahaas aan kuu sheegay laakiin dhammaan bulshadu waxa weeyaan fikrada ay aaminsan tahay kuwa ugu doorka rooni in gudniinku uu yahay waajib diini ah waxaa inala jooga Sheekh Maxamed Cumar oo kamid ah culimada dhalinyarada ah dabcan Khalidna uu ka dhawaajiyay sidaad ku daawatay muuqaalkana dad badan oo aragti ahaan u qabo inuu waajib yahay way jiraan iyo in kala badan adoo sidaad si toos ah u abaaraya diiniyan ama diinta islaamka boos xageeya ayay dhigtay gudniinka gaar ahaan kan gabdhaha runtii sida hadalka ka muuqata horta niyo gudniin baa lagu soo celinayaa gudniin saddexda gudniin ay WHO dan sheegayso intaba kama mid ah diinta haddaan hadalka soo koobo saddexdaba shuqul kuma laha diinta meelay ka soo galayna lama garanayo gudniinka wuu jiraa diin ahaan ama culimaha dhahdo waa sunno culimaha dhahdo waa waajib laakiin gudniinka wuu jiraa yaanan marka hadalka la isku khaldin waxaanu ka soo horjeednaa waa fircooniga iyo saddexda WHO-ga ay gudniin iyagu ku tilmaameen islaam ahaan gudniin ma aha gudniinku waxa weeyaan harag yar oo saaran xubinka taranka ee dumarka ee dareenka laga qaato haraggaa yar ee dusha ka saaran weeyaan gudniinku kaas ayaa meesha laga faydayaa oo laga jaraya wax ku saabsan oo la taabanayo xubinka dareenka keena ma jirto faruurihiina wax la taabanayaa ma jiraan marka si cad aanu meeshan uga abaarno gudniin maaha wax laga soo horjeedahe dadku waxay ka soo horjeedaan adduunku wuxuu ka soo horjeedaa wax gadaal ka yimi oon la garanaynin saddexdiisa noocba shuqul kuma laha diinta oon ku soo celin shuqul kuma laha diinta haddii si fiican loo samayn lahaa gudniinkan qof ka caban lahaa muu jiri lahayn sidii sunna baa lagu tilmaamay bay tiri number 1 iyo number 2 sunnana shuqul kuma laha walaa diin bay shuqul ku leeyihiin yacni haddii si fiican loo samayn lahaa sidii waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaan taariikhdeena ka siiyo dhaqan wuxuu ahaa soo jiri jiro carabta lahaan jirtayba wuu ahaa laakiin dhaqan kasta ma qaadano ilaahay wuxuu yidhi waxaanu qaadanaynaa islaamka unbaan dhaqan ka dhiganaynaa islaamka unbaa dhaqan noo ah saa daraaddeed nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduuna ku waafiqi lahayn gabadhaa gudi jirtay waqtigii madiina diinta shuqul muu ku lahaan lahayn gudniin la gudayo dumar ee waxay ahaan lahayd un ka ragga laakiin uu ka mid yahay hadda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu u qiray wuxuu yidhi laakiin shuruud buu ku xidhay wuxuu yidhi gabadhay iska ilaali ha ku fogaanin intaa in yar un taabsii waxayna halkaa ka muuqata in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu garan jiray oo garanayo yacni uu garanayay meesha la taabanayo meesha la jarayo inuu garanayay uu ku lahaa weliba meesha la jarayo meesha aad jarayso ee wax badan isaga naftirkiisaba ha ka jaray oo ha ku fogaan marka intaasan jeclaan lahaa inaan ku soo koobo intaanan kaa tegin Sheekh Maxamed markii saas loo cadeeyo dadka Soomaaliyeed mar walba waxay dhaqankoodu inta badan uu ku saleysan yahay diinta Islaamka halkee kula tahay inuu naga soo gaaray gudniinkan saddexda qayb loo kala qaaday ee gabadha dhibaateynaya sax ha ku saleysnaado diinta Islaamka laakiin waxaan isleeyahay ma ahayn wax culimo ay ka fadhiisteen oo yiraahdeen sax loo sameeyo laakiin waxay ahayd weligeedba wax islaamaha ay sameyn jireen weligeedba wax dumarka loo daayay raggu ay ka
yaksan jireen oo ka carari jireen raggu haddaan si fiican u abbaaro Soomaalida gudaheena wax yacni gabadh hadduu dhalo qofku gabadhaasi wuxuu ku ogyahay hooyadeed shuqulba kaanama inayna jirinba waxyaalo kalama hadlo wixii guur ku saabsan kalama hadlo wixii nafteeda iyo caafimaadkeeda ku saabsan iyadu waxa ku khusaysa hooyada unba ku khusaysa waxaan isleeyahay markaa xaggaasi waxay ka khaldantay oo ka qaloocsantay in dumar loo dhiibay islaamahaasun weligood ay samayn jireen iyaguna malaha wixii ay ka soo gaadheen iyagoon sii sameeyeen mid kala malaha fikrad ku sii daraysa oo dhahaysa taa haddii aanu ku kordhina ka warama anigu waxba ii tartay yacni inay aaraa'un iska ahayd oo socday oo qofna una ka shaqayn bulshad ahaan lagama shaqayn dowlad ahaan lagama shaqayn culimo ahaan lagama shaqayn waa waxay ahayd hoose oo dadka si aamusan uun ay u wadi jireen xataa lama shaac bixin jirin hiblaayaa la guday hiblaayaa wax lagu sameey waxaasoo dhan waxay ahayd shibshib aamusa marka waxaan isleeyahay halkaasi ka khaldantay waxaan ku laabanayaa Dr. Shukri dabcan xarun caafimaad aad joogtaa oo aad ka shaqeysaa xaaladaha gabdhaha ka soo wajaha ama sabab u ah asalkii hore in gudniinka uu dhibaatadaas keenay maxaa nooga sheegi kartaa inanta badanka la kulano waxa weeyaan waa inanta foosha waqtiga foosha markay taagan tahay sideeda kale dhibaatooyinka kale ee caadadiga ahaa ma ogtahay foosha uu leeyahay waxa ka daran kan gudniinka u sababaya oo ah inay fooshii ku dheeraato markii fooshii ku dheeraatana waxa jirtaba marka qaarkood keesas imaada amba dumar imaada xarumaha caafimaadka hablihii oo foolanaya oo haddana meeshii ay xiran tahay oo meel ma ogtahay ka furan aanay jirin marka waxaa jirtaba marka qaarkood fooshii waqtigaa markay gaadho in ay noo saamixi weydo xataa in ma ogtahay la eegi karo xalkay marayso fooshu markaa sababaysa in gabadhii markiiba qalliin la sameeyo ta kale badanka ah kaysaska amba dumarka badankooga waa isku furanka aan sheegnay oo iyaduna dhibaato aad u badan runtii geygeena ku jira oo mar walbana u baahan qalliin dad badanna xataa ay u arkaan ma ogtahay ceeb ay khabaystaan oo aanay marka qaarkood xarumaha caafimaadka aanay u iman ta kale jirta waxa weeyaan oo ka mid ah in runtii laga hadlo marka gabadha gudniinka la sameynayo qalabka lagu sameynayo oo aan ahayn qalab maxaa la yiraahdaa sterilized amba aan la meedhin oo nadiif ahayn oo keeni kara inay gabadhii HIV amba AIDS halkaas ay ka qaado dhibaatooyinkaas oo meedhan ayaa badanka aan la kulannaa